waxaana tusaale inoogu filan marka laga hadlayo taan usoo qaatay maanta fanaanadaas nada qalca arrintaa ku dhacday aan idinka soo sheegaya tusaale idinku filan. marka waxaan leenahay qof walba aynu sameyno muhiimadahana siinayaa ama adna xogtaadan sidan usoo samee kadib waxa ujeedada kaliya loo leeyahay wixii waa iska business in qofku inuu lacag moogtahay sameeyo marka halkaasay moogtahay la gashay. marka waxa ishaya iyo wax laba guri wada degan waxyaalaha kugu mucjisada badnaa waxay laba qol wada degan oo hadhowtana xaggaa iska soo maagaya. marka waxaan leenahay dhalinyarada daawanaysa ama dadka caadiga shacabka daawanaya inta badanna iyo inaan rumaysanin oo qofkaas odhani maanta qabiilkaagi baa lagu soo duulay ama qabiil hebel baa lagu soo duulay ama saaxiibtullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan soo dhawaada nagu cusubta insha allahu tacaala. walaalkii maxamed cabdilaahi halka naga daawanaysana waa dhuxul media barnaamijyadeennii xogta caafimaadkan mar walba idinla wadaagay aadna idinka mahad celinayaa si aad ugu xidhan tihiin aan uga qayb qaadanayno meel walba aad joogtid wixii aad bulshada u tari karayso u tar. marka insha allah hadda nagu cusub soo dhow fadlan subscribe-tana ka ilaawi si asxaab badani uu gaadho like-tan waa sidoo kale haddii ilahay idmo haddayna wax ka faa'iiday haddaad nagu cusub tahayna soo dhawow haddaad dib ka daawan doontidna sidoo kale aad bay noo farxad gelinaysaa. caawa koley waa habeen jimca sabti soo galayso ugu horeyn waxaan leeyahay hambal iyo 26 June koley anigu laga yaabaa daqiiqadaaba iga hadhay hadeer aan galnay 26 June inta ay sugaysay berri u noqon doontana hambalyaynu leenahay dhammaanteenba insha allahu tacaala. soomaali meel walba ay joogtana ilaahay dhibaatooyinka ka dulqaado siduu kuwii horeba uga dulqaaday. waxaynu isla yareegayna maanta haddii ilaahay idmo maalin walba habeenka sabtida ama maalinta jimcahaaba waxaynu isla yar eegnaa inagoo barnaamijyo caafimaad inta badan halkan idinka soo gudbiya iyo xogaha markaa taaganba. caawa markaa waxaynu ku yar eegaynaa mar walba aan dhextaal uga yar dhignaa maalinta jimcaha ama habeenka sabtidaaba arrimaha markaa taagan. marka waxaynu eegaynaa dadkan social mediaha ku jira soomaalida ee aadka hadeerto odhan kareen xoogaa afkooda yar dhaadheer oo waa la daawadaa ma iyagaa khaldan mise inagaa khaldan oo dadka shacabkaaba yar khaldanba. waxaad moodeysaaba in xoogaa programkii qabyaaladii 20 sano dalka burburiyey loo soo raray baraha bulshada. laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa hal ujeedo ama sir yar ay leeyihiin dadka dhammaan social media ku jira. ugu dambeynna talooyinkeena caafimaadka iyo isbuucyadan waxaa inoo qorshaysan oo idinla wadaagi doonaa hambalyadaana waa nusoo galay insha allahu tacaala. marka haddaad nagu cusub tahay soo dhawow wixii mar walba ra'yigaagaana telefoonka xagga hoose ku qoran iyo emailkaaba inoogu soo dir bulshaduna aday ku sugaysa insha allahu tacaala. marka laga hadlo hadda waad arkaysa hebel baa la haystaa hebel baa la caayay hebel baa usoo jawaabay qabiil hebel baa sidan waxyaalahaasa dhegaheenni moogta kusoo dhacaya oo awlixaynu khaati uga taagneyn meelihii starboxyada iyo maqaaxyaha wax lagu cabo in qabyaalad lagu falanqeeyo aan wax badan dhalinyaradii iyo bulshadii iyo guryaha kasoo toosay aan wax loo qaban hadeertana social mediaha lagu yar wareeriyey. marka ujeedada ama secretka ay kaleeyihiin inta badan waxays haya moogtay male qof caaya haddaad aragtid hebel ku dhegan haddaad aragtid meeshan jooga meelaha ugu youtuberada badan waxaad arkaysaa iyagoo ama wada fadhiya ama iska wada shaahaya odhanaya caawa ay soo galo kalaba wax xaqiiqa ah moogta waxaynu iska sheeganana maaha. hebel waxaa laga yaaba xogtiisa buu siinayaa ama adna xogtaadan sidan usoo samee kadib waxa ujeedada kaliya loo leeyahay wixii waa iska business in qofku inuu lacag moogtahay sameeyo. marka halkaasay moogtahay la gashay. marka waxa ishaya iyo wax laba guri wada degan waxyaalaha kugu mucjisada badnaa waxay laba qol wada degan oo hadhowtana xaggaa iska soo maagaya. marka waxaan leenahay dhalinyarada daawanaysa ama dadka caadiga shacabka daawanaya inta badanna iyo inaan rumaysanin oo qofkaas odhani maanta qabiilkaagi baa lagu soo duulay ama qabiil hebel baa lagu soo duulay ama saaxiibkaaba la maagay just waa wax iska businessa. wuxuuna hadduu lacag galana waa meeshii doonto moogta qofkay kala dhacaysaa. muhiimaddu waxay tahay xalaal iyo xaaraan ba inuu eego dadkana waxa anfacaya usoo gudbiya. youtubero badan oo fiican baa jira oo dadka entertainment ha noqoto waxyaalo faa'iido leh usoo gudbiya kuwaas ayagu kumaba jiraanba. hadda qudhi haddaan halkan ka magacoona ayaga qudhada waxaa la odhanaya waad u eexatay waxaanu leenahay hore usii socdaa iyagana laakiin 90% baynu leenahay. waxyaalaha laga dhaxlo moogtahay
dalkeena wuu burburay, dadkii xoogaa waa lasoo kala qaxay, waa laiswada laayay, kadibna waxaa dhacday dadkii inay xusuuso badan ku noolaadeen halkii la rabay inay yar nafisaana. waxyaalihii maqaaxiyaha iyo dalka yaalayna waxaa dib loogu soo raray social mediaha, ummadii baa lasii yar kala qaybiyey, war beena baad arkaysaa, war degdega baad arkaysaa, iyo markaad furtidna waxba ugu dhex tegin oo dareenkaagina kicinaya. qofku waa inuu ilaahay ka baqaa, isagoo shaqaysanaya waxyaalaha soo geliyana u eegaa, shacabkiisana uu ilaaliyaa dareenkooda. waayo haddaad qofkii dhibaato ka qeyb qaadatin ama aad ku faraxdid ama aad been sheegtay, qeyb baad ka noqotay. kolley ma garanaya aakhiro, qof ilaahay waa qafuur raxiim, laakiin qofku siduu u badbaadayo oo beeno badanba oo noloshoo dhan baa branki maogtahay iska noqotay. marka waxaan leenahay dadka social mediaha ku jira, dadka daawanaya, haba ha kasoo qaadin insha allahu tacaala, waa arrimo iska businessa. qofku waxa loo baahan yahay inuu xagga horumarka iyo wanaag iyo barnaamijyada qiimaha lagu ka sheekeeyo, dadkuna is xusuusiyaan. marka entertainmentiga noqotay iyo madadaalada iyo maaweelada, ina kuma lihin hay-ada faafreebo oo la yirahdo waxaasin daawanayna iyo ma daawanayno. waa la iska soo daayaa, waxaa la keena waxaani dhaqankaaga iyo diintaadiiba ma yihiin, waxa aad faafinaysidna wax rasmiya maogtahay ma yihiin. muhiim bay tahay waxa kuu gelaya, adigu caan baa nahay, sidaasaa nahay, taas matter wax alaale waxay macno sameynaysa male. waxa macnaha le waxay tahay waa fariinta aad gudbinaysid, beri kama intaasoo sanana ku jiri doonta, cidda ku dhaqmi doonta yaa kugu dayanaya, qofkaas baa maogtahay. intaa unbaa inoo muhiim. anugu hadda halkan aan soo fadhiyo, macnahaygii magacaygu oo kale waxba madama sheegayaan, laakiin ma iga faa'iido wax wanaagsan ma kuusoo gudin, markaa unbaa ujeedadeydii la gaadhaya. soomaaliyana ama dalkii oo kalena ma laha waxyaala faafreeba oo waxa qofka loo soo gudbinayo la eego oo la yiraahdo niyo waxan masaxa ama khaladba. waxaad arkaysaa isagoo isla wanaag aad sameysid oo wax wanaagsan aad soo gudbisid, inooga dhigayo wax wanaagsan, inuu qofku xumaan aadan arki lahayn uu qofkii ku tuso. dowlada inaga controlana maogtahay ma lihin. waxaan xusuustaa hadda gabadh aada baraha bulshadeena loo hadal hayo, Soomaaliya aad ugu dhagan tahay, oo gabadh fanaanada oo aada u qurux badan oo suudaaniyada, nada qalca baa la yiraahdaa, baa waxay soo qaaday heesaheed. waxaa kamid ahaa beri dhexdaasa heesay ku maagayso ragga laga roonayaasha, ay ku leedahay waxaani ninnimadaadii iyo dadnimadii in nin raga wax laga doono aada bay ceeb maogtahay u tahay. heesoo ay ayaga ku dhaliilayso, heestaa ay nada qalca ay soo saartay ay ku dhaliilayso, waxay hees ayadu marka ay rabtay inay ku wacyigeliso. marka waxyaalaha tusaalaha ay dowladnimada ku fiicanta waxaa kamid ah, markiiba waa la joojiyay heestii. muran badan bay Suudaan ka dhex dhalisay, waa la qabtay. waxaa lagu yiri nadaay, dad badana waxaan ogeyn baa sii baari doona markay maqlaan in hadda waa shakhsiyaad, laakiin gruubyo dhan baa sii maqli doona. oo marka la dhaho xumaantani kasoo hadashay nada oo hees ay ka qaaday, waxay eegi doonaan inay raadiyaan oo dhahaan dadkan waxaan iska sameynaya waa noocma. marka qofku waa muhiim, sida hadda aan tusaalaha kusoo qaatay nada qalca heeseeda ay samaysay ee wacyigelin tahay, ay dowladdu ay ka joojisay. weliba gabadh fanaanada oo aada message-keedu fariinteedu meel gaadhay bay ahayd. adiguna sidoo kale inaad wax adoo isla wanaag ka dhig haddana naag waxyaalaha xun aad dadkii iyo dhalinyaradii aad la wadaagtid, waxay la mid tahay taa. laakiin nasiib darro inaku meeleen u noqono male. intooda badanna dadkaasi waa dad iska qaxoontiya, afka ku hadlaan waa af Soomaaliya oo laga yaabo in sharciyadooda aysan qaban wadamada ay ku nool yihiin, waxa ay faafreeb aysan jirinba. laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad ogtahay waxaad la wadaagaysid, aad maanta reactionkaad ka bixinaysid, falcelinta aad leedahay dadkani maxay ka faa'iidi doonaan, xumaantina ha ka qayb qaadanin. adoo iska fadhiyo oo isla talo dalkiiya ka wardo madarkaysa war degdega saagabiis waxba ugu tegmaysid, waa cay iyo laba qabiilo is haysta. marka xagga wanaagsan aynu u eegno mar walba aynu leenahay. waxaana tusaale inoogu filan marka laga hadlayo taan usoo qaatay maanta fanaanadaas nada qalca arrintaa ku dhacday, aan idinka soo sheegay tusaale idinku filan. marka waxaan leenahay qof walba aynu sameyno muhiimadana aad leedahay faafreeb, qofkii muxuu ka faa'iidayaa, ujeedada maxay beri waad dhimanaysaa,
adoo dhintay qaar ba hadda naxab markay kaasoo horbaxaan ayagoo waxyaalaha sameynaya. Ilaahay waa qafuur raxiim, waynu u ducaynaynaa. laakiin waxaynu leenahay sida caalamka oo kale youtuberadan ama maraykan ha noqoto ama carabta kale ha noqdo, waxyaala faa'iido leh maawiladeedu wadata, heesaheedii wadata, waxaan ku yidhi wacyigelinteedii philosophigeedii kala wadata baynu samayno. sida youtubera badan hadda soomaaliya af soomaali ku hadla maasha allah, ana aad ba ugu taxanahayba. taasaynu sameynaynaa. hadeertan maalmihii hambaliyada lagu jiraa, dhammaantiinba hambaliyaan idin leeyahay. waxaana idinla wadaagi doona insha allahu tacaala mawduucyadiina commentiyadiina waan arkaa inaan mawduuca mar walba baahida loo qabo aan idinku wacyigeliyo, si xilli hore loo tago goobaha caafimaadka oo qofka naftiisana uu daryeelo. oo wacyigelinta xusuusin bay tahay barnaamijyadeenu mar walba qabanayno. marka waxaynu leenahay aynu dadaalno, dadka maskaxdooda iyo caqligoodana aynu dhisno. bulshadan inaku maanta meli hal qof hadduu daawado ma odhanayo maxaa intaasi u daawatay, laakiin fariintii soo gudbiyey weeyaan, oo berri maxaa dhaxal gala oo aad ka tegaysaa. taasaa muhiimad u tahay, ee muhiimadu maaha si aad magacaan u tahay inta ku daawataba. insha allahu tacaala waxaynu leenahay hambalyo, ilaahay dalkeenana nabad haynoogu dhigo, haynaguna wada kulansiiyo insha allahu tacaala. intaynu muuqaal xiga ku kulmi doono, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. salaamu calaykum.